ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa howlgallo qorshaysan ka sameeyey deegaanada kala ah Farsooley, Faaruqley, Toorotorow iyo Ceel Bashiir oo ka kala tirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay. deegaanadan uu howlgalku ka dhacay ayay argagixisadu ku lahaayeen fariisimo ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah kuwaasoo kala ahaa goobo maxkamad beenaada iyo bara kantarool oo ay ku baadaan shacabka Soomaaliyeed ee mara deegaanadan iyo kuwa ku nool. intii howlgalka ay wadeen ciidanka kumaandooska danab waxay sameeyeen howlgallo baadhitaana oo lagu xaqiijinayo ammaanka deegaanada iyadoo ciidanku ay halkaasi ku dileen horjooge iyo maleeshiyaad istaaf u ahaa waxaana lagu magacaabi jiray horjoogaha la dilay Xasan Dheere kaas oo qayb ka ahaa argagixisada dhibaateyn jirtay bulshada ku dhaqan deegaanka Toorotorow sida ay warbaahinta ciidamada qalabka sida u xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysa howlgalka. kooxahan argagixisada ah ayaa ah kuwa caadaystay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah balse ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa taas ka biyadiiday iyagoona sii waday bacsiga haradiga argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab.